marka laga hadlayo khalkhalka ku dhaca caadada si guud dhakhaatiirta anagu waxaan idhahnaa kelmadda la yidhaahdo AUB ama abnormal uterine bleeding kaasoo ah khalkhal ku dhaca maxay ahayd dhiigga caadiga ah ee yimaada maxay ahayd bil kasta marka la qeexayo khalkhalka ku yimaada dhiigga caadada waxaa lagu qeexaa dhiig kasta ama dhiig kasta oo ka duwan kii normalka u ahaa ama caadiga u ahaa gabadhaas taasi waxay ka dhigan tahay khalkhalka marka laga hadlayo khalkhalku qeexitaan gooniya uma laha oo guud laakiin qof gabadh kasta waxay leedahay iyada wax u normal ah laakiin waxaa jira marka laga hadlayo normal menstrual cycle-ka ama caadada normalka ah ee dumarku ay helaan waxaa la yidhaahdaa caadada maxay ahayd timaada bishiiba 28 cishaba taasoo socota celcelis ahaan 3 ilaa 5 cisho oo wixii 7 cisho ka badan baaba ayaa la yidhahdaa waxa weeyaan abnormal ama waxa weeyaan maxay ahayd caadi ma aha sidoo kale waxaa la eegaa xaddiga ama maxay ahayd qiyaasta amountka gabadhu ay maxay ahayd ka yimaada caadadaas oo waqtigaas oo noqonaysa inta badan 30 ml normal average oo taasoo lagu qiyaasi karo inta jeer ay gabadhu iska bedesho waxay dumarkeenu yaqaanaan always oo ah in 3 jeer maalintii wax ka badan oo 4 jeer iyo 5 jeer iyo 6 jeer haday gabadhu ay ka badato waqtigii awal hore hadii ahaan jirtay laba ay isticmaal jirtay 4 jeer taasaa la odhanayaa waxa weeyaan khalkhal baa ku dhacay gabadhaas caadadeedii sidoo kale waxaa la eegayaa in dhiigga normalka marka la qeexayo waxaa lagu qeexaa sidoo kale kalarka waa inuu ahaado casaan oo red ah oo aan wadan xinjir haddii uu dhiiggu wato xinjir waxa ay noqonaysaa in maxay ahayd xinjirtaasi ay sheegayso in gabadhaasi ay leedahay excessive bleeding ama dhiigbax dheeraad ah dhiigbaxaas dheeraadka ah waxaa inta badan keenaa wuxuu yahay in xinjirowga jidhka qofka bini'aadmiga ku jira caadiyan dhiigga caadadu xinjir ma yeesho sababtuu yeelin waayo waxa weeyaan waxa isleeg inta loogu talagalay ee xinjirowga keenaysa iyo inta ka hortagaysa oo inta badan haddii uu dhiiggu fara badan yahayna waxay tilmaamaysaa in ay xaddigii loogu talagalay inuu xinjirowga yareeyo inay dhaaftay oo dhiigbixii uu ka bato kadibna ay xinjir timaado taasoo qiyaas siin karta dhakhtarka aad u cabanayso haddii caadadaadu ay xinjir leedahay xinjirtu maaha caadi maaha normal oo caadada normalka ah amaba caadiga ah ee bishii dumarka ka timaadaa caadiyan ma yeelato xinjir ma yeelato marka haddii xinjir yeelato gabadha waa inay markaa ay shakido oo ay dhakhtarka istiraahdo u tag oo weydii waxa keenaya xinjirtan sidoo kalena durationka markaan ka hadlayno iyo frequency-ga sida uu imanay frequency-ga waxaa la yidhahdaa sida uu soo noqonayo oo waxaa laga yaabaa markaynu ka hadli doono waxaa la yidhaahdo caada khalkhalka noocyadeeda inaynu sheegi doono qaar ka badan waqtiyada imanayaan 28 cisho ka yar baan ujeeda oo 10 cisho mar imanaya ama qaar imanaya 5 cishoba ama 15 cishoba marka haddii gabadh kasta waqtigeedu waqti cayiman ma aha laakiin ta normalkii waa taas waxaa sidoo kale maxay ahayd marka taa markaynu ka hadlayno caada khalkhalka abnormal uterine bleeding-ka iyo dhabar furanka oo isaguna qayb ka mid ah khalkhalka caadada ku dhaca oo dee Soomaalideena waliba gaar ahaan ay u taqaano uun khalkhalka caadada ku dhaco dhanba haddii dhiig baxba u yimaado waxa uu yaqaan dumarkeenu dhabar furan laakiin dhabar furanka inta badan waxa gabadha la oranaya gabadhaasi dhabar furan bay qabtaa marka la garan waayo waxa khalkhalka keena oo waxa weeyaan ka waxa la yiraahdaa dysfunctional uterine bleeding ama waxa weeyaan dhiig baxa ama dhiigga khalkhalka la garan waayay waxa keenay ayaa la oranayaa oo taa waxaan anagu caafimaad ahaan dhakhaatiir ahaan waxaan idhaahnaa it is a diagnosis by exclusion waxaad meesha ka saaraysaa wixii sabab ahayd ee keentay khalkhalka haddii for example khalkhalka uu keenay maxay ahayd abortion oo for example ay hooyadu for example uur qaado kale lama odhanayo waa dhabar furan oo dhabar furanku qeexitaankiisa waxa weeyaan in gabadhu khalkhalka caadada ku dhacay ama dhiigga ka imanaya makaanku ay gabadha u timid
uu la garan waayey sababta keentay oo lagu sharixi kari waayey sabab la caddayn karo ama shaybaar lagu caddayn karo ama computer ama maxay ahayd uu dhakhtarku ka fikiri karo taasaa la odhanayaa waa dhabar furan laakiin si guud kelmadda ama umbrellada dalada ay soo hoos galayaan waxay noqonaysaa AUB ama khalkhalka ku dhaca caadada ay noqonaysaa